muuqaalkan waxaan rabaa inaan maanta ku faahfaahiyo mashruuca la yiraahdo Project 2025. mashruucan waxaa qoray Heritage Foundation oo dhinaca midig ah, waxa uu soo baxay sanadkii hore. Waxa la leeyahay waxa ku jira qorshaha Trump uu doonayo in uu wadanka ku maamulo haddii mar labaad uu soo laabto. Trump wuxuu doonayaa inuu meesha ka saaro, wuxuu doonayaa inuu soo kordhiyo waxyaabahaasi oo idil oo Project 2025 ku jira ayaan rabaa inaan idin la wadaago. Balse marka hore wax yar arintii Group 5 oo 2 maalin ka hor aan ka soo hadlay, waxa aad u malaysaa dadku inay ku wareersan yihiin. Arintan horta waa arin kooban oo muddo 40 maalmood ku dhawaada soconaysa. Waa dadka Mareykanka jooga oo 5 qof markay isdiiwaan galiyaan oo yiraahdaan waxaan doonaynaa in aan dad keeno, dadkaas iyagu ma dooranayaan, dadka ay keenayaan ayaga lacagta ayaa laga bixinayaa $2425 ahayd, way isdiiwaan gelinayaan, laakiin waxyaabihii kale oo idil waa ay marayaan background check waxyaabahaas. Iyagu dadka ay keenayaan ma dooran karaan 5 qof ee Mareykanka joogta, dadka la keenayana iyagu waxba ma dooran karaan. Ama RSC Africa ayaa la soo xiriiraysa dadkaasi, ama UN ka ayaa la soo xiriiraya, waxa leeyahay waa lagu qaadayaa, dad ayaana ku kafaala qaaday. Adiga qofka qaxootiga jooga in uu wax sameeyo loogan baan. Haddii aad dib u dejin haysato, waa dadka la qaadayna waa dadka dib u dejinta haystay, ama dadka caafimaad sugaha ama dadka falaad suga muddada sanadaha badan ah ayaa looga faa'iideyn doonaa barnaamijkan kooban. Ma u malaynaya Soomaaliya inay isku diiwaan gelin doonaan Mareykanka jooga qof aysan aqoonin inay keenaan. Marka dadka Mareykanka jooga 5 qof iyagu markay isdiiwaan gelinayaan, dadka ay keenayaan ma dooranayaan, qofkii ay rabaan ayaa loo keeni karaa. Adiga qaxootiga joogana ma dooran kartid oo ma dhihi kartid oo xalay qaado. Iyaga ayaa kula soo xiriiraya, ku sheegaya xilliga lagu qaadayo iyo waliba in dad ay ku kafaala qaadeen. Dadku waxa ay yihiin adigu ma taqaanin. Markii halkan imaata ayaad la kulmaysaa, ama cadaan haadaan, ama madow haadaan, ama muslim haadaan, ama gaal haadaan, waxay yihiin ma taqaanid. waxaana aan rabaa in intaas ku daro dadkan dib u dejinta haysto oo barnaamijkan ka faa'iideysanaya waa dadka sanadaha qaxootiyada jooga, ama falayd sugaha, ama caafimaadkii dhowr jeer ka dhacay. waxaana la doonayaa in la keeno ka hor doorashada inta aysan dhicin. doorashadana hadda 4 bilood oo kaliya ayaa ka harsan. marka inay sidaasi dadku u ogaadaan, wejigii koobaad ayaa hadda waxay tahay tan qaybtiisii 3. wejiga koobaad dhowr marxalad ayuu soo maray. markii ugu horeysay waxay ahayd dadku sidaan oo kale dad aysan aqoon in loo keenay. markii dambe waa tii la yiri qof isku diintiina la idin keenaya. haddana waa tan la leeyahay markana lacagtii ayaa dadka laga bixinayaa, isla markaana dadka 5 qof markay isdiiwaan galiyaan kadib qof aysan aqoon ayaa loo keenaya. adiga qaxootiga joogana aan wax joyce kuma lihid arrintan. ama RSC Africa ama UN ka ayaa waxay ku leeyihiin waa lagu qaadayaa, kadibna dad ayaa ku kafaala qaada. sidaas inay dadku u ogaadaan ayaa muhiim. arrintan aan guda galo marka oo mowduucan uu ku saabsan yahay Project 2025. waxa la leeyahay barnaamijkan waxa uu ka sheekeynayaa sida Trump uu doonayo wadanka inuu u maamulo marka uu hadiiba uu soo laabto doorashada soo socota ee dhamaadka sanadkan dhacaysa, iyo marka xilka uu la wareego 20 bisha January ee sanadka 2025. barnaamijkan sanadkii hore ayaa la soo bandhigay. waxa uu ka kooban yahay 920 book ama page ayuu ka kooban yahay. Heritage Foundation ayaa soo bandhigay, waxaana amaba soo diyaariyay, waana Heritage Foundation waa la yaqaanaa, waa dhinaca midig ayuu u janjeeraa. marka waxa uu ka sheekeynayaa sida Trump uu doonayo wadanka inuu u maamulo, oo la leeyahay qaab dictatori ahaan ayuu doonayaa inuu maamulo. Trump waan ognahay ololihiisa doorashada waa kii dhahaya dadka soo galootiga xiriir ayaan u sameynaya, waa tarxiilaya. sidoo kale waa kii yiri argos ayaan sameynaya, aniga wixii la igu sameeyay marmarsiyo ayaanba u haystaa. wuxuu leeyahay arrintan dacwadahan igu socdo Biden ayaa ka dambeeyay, wasaaradda cadaaladda iyo FBI-da isaga ayaa igu soo diray, marka anigana marmarsiyo ayaanba u haystaa inaan argosto. marka arrimahaasi laga soo tago, waxa la leeyahay Trump waxa uu doonayaa in uu kala furfuro dowladda federaalka, isla markaana uu ku bedelo fikir muxaafada oo isaga uu soo diyaariyay. arrintan xitaa xisbiga dimuqraadiga waxa ay sameeyeen guddi ay ugu magac dareen guddiga la dagaalanka Project 2025, oo ay leeyihiin waa fikir qaldan oo loo baahan yahay in wax laga qabto. marka madaxweynaha qorshihiisan, inkastoo marka Trump hadda ololihiisa doorashada Trump weli afkiisa lagama maqlin Project 2025, arrintan markii wax laga weydiiyay ololihiisa doorashadan waxay yiraahdeen haddii xubin ka tirsan ololaha doorashada aan laga maqlin ama Trump afkiisa aan laga maqlin, ma ahan wax ka soo baxay ololaha Trump. marka Trump weli way iska fogeynayaan, laakiin arrintan waxa ay la leeyahay waa qorshaha Trump uu doonayo inuu wadanka ku maamulo haddii mar labaad uu soo laabto.
dadka uu shaqaalaysiinayo waxay noqon doonaan dad la soo baaray, la soo tababaray, lana soo diyaariyay oo maalinta koobaad uu xilka la wareego shaqo galaya ayay noqon doonaan. Marka project 2025 waxa uu ku dhisan yahay tiirarkan soo socda oo ilaa iyo 4 tiir ah. Waa dhinaca siyaasadda, dhinaca shakhsiyaadka dadka oo la shaqeynaya dowladdaasi, training la siinayo iyo playbook oo ah waxa ay qabanayaan oo yihiin wax u qoran oo loo soo diyaariyay. 180 maalmood oo u horeeya 6 bilood oo u horeyso waxa ay doonayaan qorshahaasi inay fuliyaan oo dowladda ay fariisiyaan. Maxaa kamid ah marka waxyaabaha ku jira oo Trump uu doonayo inuu fuliyo? Waxyaabaha waxaa kamid ah in horta federal ban uu ka dhigo oo guud ahaan wadanka laga mamnuuco in ilmaha la iska soo ridi karo. Arrintaasi waa arrinta ugu weyn hadda ololaha doorashada ay tahay. Biden ama xisbiga dimuqraadiga waxay u ololeynayaan qofka haweeneyda in iyada jirkeeda haddii ay dhibaato ku timaado awood loo siiyo, haddii rabtan ilmaha iska soo ridi karto, qofka noloshiisa khatar haddii ay ku imaatana sidoo kale uu ilmaha iska soo ridi karo. Laakiin Republicanku arrintaasi waa ay ka soo horjeedaan. In sidoo kale dib looga laabto hay'adda FDA oo xakamaysa cuntada iyo daawooyinka, in hay'adda FDA oo dhinacan cuntooyinka qaabilsan iyo waliba xakamaynta daawooyinka wadanka soo galaya waxay ogolaatay kaniiniga la yiraahdo mifepristone oo haweenku ay isticmaalaan si ilmaha isaga soo ridaan in la isticmaali karo. Marka in dib looga laabto arrintaasi oo la mamnuuco oo sanadkii 2016 dib loogu laabto oo la mamnuucay xitaa kaniiniyaasha ilmaha la isaga soo rido oo qofka mailkiisa loogu soo diri karo in dib looga laabto. Waxaa sidoo kale ku jirta in lagu dhawaaqo in abortionka ama in ilmaha la iska soo rido uusan arrin caafimaad uusan ahayn. Waxaa sidoo kale ku jirta in uu sameeyo guddi la yiraahdo pro-life in la sameeyo oo dadka qofka nolosha in haweenku ilmaha aysan iska soo ridi karin u ololeeya in la sameeyo. Waxaa sidoo kale ku jirta in magaca laga bedelo wasaaradda caafimaadka iyo adeegga dadweynaha oo hadda la yiraahdo HHS loo soo gaabiyo Human and Health Service. Waxaa magaceeda loo bedelayaa Department of Life, wasaaradda nolosha ayaa loo bedelayaa. Waxaa sidoo kale ku jirta in qofka shaqo looga baahdo kaarka caafimaadka dadka ay dowladdu ay siiso oo Medicaid-ka in shaqo lagu daro oo qofku haddii uusan shaqaynin kaarka caafimaadka laga jaranayo ayaa ku jirta. Waxaa sidoo kale kamid ah qorshahan project 2025 waxyaabaha ku jira waxaa kamid ah in la cambaareeyo single motherhood waxa la yiraahdo qofka ilmaha kaligiis hooyo ilmo ayaan iska haysta wax iga dhalay malaha iska korsanayso oo kale. Iyo sidoo kale waxaa kamid ah same sex marriage-ka dadkan qoomuluudka isku taga in la cambaareeyo. Waxba laga qaban karo wadanka federal ayaa laga dhigay afka laga cambaareeyo oo kaliya. Trump arrimahaas waa ka soo horjeeda laakiin hadda waxba kama bedeli karo. In meesha laga saaro head start wax la yiraahdo carruurta inta aysan iskuulka gaarin waxaa loo sameeyaa head start wax la yiraahdo oo lagu barayo in waxyaabaha aasaasiga ah in gabi ahaanba meesha laga saaro. Waxaa sidoo kale ku jirta in wasaaradda cadaaladda gabi ahaanba dhaqaalaha laga joojiyo. wasaaradda cadaaladda Trump wuxuu leeyahay mid ay bartilmaameedsanaysa wasaaradda cadaaladda gabi ahaanba dhaqaale in la siin. Macnaha waxay tahay meesha ay ka baxaysaa. FBI-da sidoo kale in la kala furfuro. Trump FBI-da sidoo kale waa kuwa baaray gurigeyga ayuu leeyahay in meesha laga saaro wasaaradaha waxbarashada iyo ganacsiga. labadaasi wasaaradood gabi ahaanba meesha waa laga saarayaa. waa qorshaha project 2025 ay waxaan oo idil ay ku jiraan. in sidoo kalena awoodda madaxweynaha la kordhiyo sanadka 2025 qodobka labaad ee dastuurka waxaa ku jirta in madaxweynaha awoodiisa gabi ahaanba fulinta isaga gacantiisa ay soo galayso. macnaha Congress-ka uu ka maarmi karaa mararka qaar isaga ayaa awoodiisa isticmaalaya ayaa la leeyahay. arrimahan dowladda Mareykanka waxay ku dhisan tahay check and balance wax la yiraahdo isu dheelitir awoodda oo awood kale ku xadgudbi karta ma jirto. Trump wuxuu doonayaa marka arrintaas inuu meesha ka saaro. waxaa sidoo kalena meesha ku jirta in shaqaale fara badan oo dowladda ah la bedelo oo lagu bedelo kuwa siyaasadeed oo Trump uu magacaabay. arrintan waa muhiim. wadanka waxaa ka jira shaqaalo ilaa iyo 2 milyan gaaraya oo dowlado kala duwan oo khubaro ah oo aan la bedeli karin oo job security wax la haysta oo shaqadooda aan laga qaadi karin. Trump marka shaqaalahaas waxa uu doonayaa inuu bedelo ilaa iyo 4,000 oo kuwa siyaasadeed oo la magacaabana waa ay jiraan oo wasiirada ayaa kamid ah oo madaxweyne kastoo yimaado wasiir ayuu magacaabaa. wasiiradaasi markuu dhacana way la dhacaan. marka laga soo tago 4,000 oo madaxweynuhu magacaabo 2 milyan oo shaqaalaha waxaa jirta aan la bedelin. wax kamid ah injineerada NASA dad khubaro ayaa kamid ah. marka Trump waxa uu doonayaa shaqaalahaas federaalka ee muddada soo shaqeynaya xitaa inuu bedelo oo kuwa isagu uu magacaabay uu ku bedelo. arrintaasna sidoo kale waa arrin si weyn looga cabsi qabo.
oo shaqada dawladda inay saameyn ku timaado ayaa laga baqaya. Waxa sidoo kale Trump kamid ah waxyaabaha uu doonayo inuu sameeyo in uu kordhiyo dhisitaankii darbigii Mareykanka iyo Mexico laga dhisayay, in sidoo kale lacagta immigrationka dadka immigrantska lagu kordhiyo marka ay passport xareynayaan ama green card ay xareynayaan ama dad ay dacwad u xareynayaan in lacagihii ay bixin jireen la kordhiyo. Waxa sidoo kale kamid ah in lacagta canshuurta ah aan balaga qaadin shirkadaha waaweyn ama dadka maalqabeennada ah, income taxigana meesha laga saaro. Waxa sidoo kale ku jira in renewable energy-ga la cusboonaysiin karo, sidoo kale inaan wax lacag ah lagu bixin. Waxa sidoo kale ku jira in increase energy production-ka, wax soo saarka dhinaca gaaska iyo waxyaabo shidaal badan in la qodo oo la soo saaro ayaa ku jirta. Marka Trump waxyaabahaas oo idil ayuu doonaya, waxa la leeyahay project 2025 ku jira. Sidoo kale hay'adda deegaanka iyo nolosha xayawaanada qaabilsan in meesha laga saaro. marka arintaasi project 2025 Trump waxa la leeyahay qorshihiisa sidaas ayuu doonayaa in uu u fuliyo hadii wadanka micnaha qaab dictatori ahaan ama qaab boqortooyo ahaan in uu wadanka Mareykanka u maamulo ma suura galayso. waan ognahay oo wadankan sharci ayuu ku dhisan yahay, Congress-ka ayaa jooga. hadii xisbiga uu aqlabiyada labada aqal ee sanadka iyo aqalka wakiilada iyo madaxweynaha isku haystaan, markaas wixii ay rabaan way fushan karaan wali la xisaabtan uu jiro. haddana hadii labada aqal midkood laga haysto waa ay ku adagtahay. marka madaxweynuhu waxa la leeyahay isagoon Congress-ka u baahanin ayuu doonayaa in awoodihiisa la kordhiyo awoodo dheeraada uu isticmaalo. Arrintan waxaa ku dhaqmay madaxweynaha cusub ee wadanka Argentina oo Trump xitaa ay wada kulmeen, Javier Milei, oo nin waalanba u eg. wasaaradda fara badan ayuu meesha ka saaray markii xilka uu la wareegay. intii Allah uu ku jirayna waa uu sheegay. wasaaradda oo meelaha ka saaray waxaa kamid ah wasaaradii dhaqanka, wasaaradii deegaanka iyo waliba horumar joogta ah, wasaaradii haweenka iyo kala duwanaanshaha jinsiga. waxyaabahaas oo dhowr wasaaradood ayuu baabi'iyay. wasaarada kalena waa isku daro. wasaaradihii wadanka waa uu soo koobay. madaxweynaha Argentina waa nin Trump aad u taageersan oo markii uu xitaa ololaha ku jiray Jensu ayuu soo qaatay, baalahan geedaha lagu jiro ayuu soo qaatay. saas dhihi jiray nin waalan ayaad u malayn jirtay. Trumpna waa ay wada kulmeen bishii February, waliba si aad isagoo ugu riyaaqsan ayaa la arkay markii ay wada kulmayeen. marka waxaa la leeyahay marka Trump qaabkaasi project 2025 sidaas ayuu noqonayaa oo wadanka hadii uu madaxweyne ka noqdo waxa uu doonayaa qaabkaasi qaab dictatoriya u eg inuu wadanka ku maamulo. waan arki doonaa waxyaabaha ka soo kordhay iyadoo waliba doodii labada madaxweyne maanta marka laga reebo 3 maalmood ee ka santo Khamiis soo socota ay doodi doonaan. doodaasina barnaamij ayaan ka soo sameyn doonaa hadii alla idmo Arbacada meelaha. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta. intaan marka la kulmi doono waa saaxiibkeen Cilmi Waaro idin la sida iyo nabadgelyo.